waxa jira ciidaha iyaga cayrka ayaa dhib badnaayo qoloc badnaa markaas waxa la yiri warniyow soo kala baqaysidee la yiri dadku inay inta ku bartaan ku nacaan soo kala baqays markaas wuxuu yiri cusubkayga wuxuu yiri cimrigayga iyo cusubka cayra eguy yani ciidan qatar weyn ma waa maalin kasta walaalo marka adiga maartay sidii oo kale maanta hadda waxa weeye rag badan baa maartay kugu qatalan walaalo mabda waad xort مبدئين وجوء آمني إلهي درت أتقاط واضح رجينا واضح هل إذا من هل ونمك رجي عبارتي ما أنت أدمير جاتي ما أكون تهم مجد. السلام الله عليكم وذات كم محبوس لو يقانو حسن ظاهر أويس يا ما أنت السكر الله اللي ذويني ورئيس عليها الشريف شيخ أحمد حسن ظاهر أويس يا شريف شيخ أحمد أياها صاحب النفط شكورا سنده لوذا كوني اللحدة لوذا كوني تضوضا إلا إيا لوذا كوني سديدا حسن ظاهر أويس يا شيخ شريف أيا لو حسوستان نودي كينين مدة صدن سنة إلا هذا لغا جوغو مقالة مقدشة إياكم قارهان كفرت الصومالية ودنا يكون لو حسوستو إن لح بلود أو أمني أو واحد بقى أنجرين مقالة نقف بلا آذنا لو دلي كرين إني كينين مركي لغسو تقو سياب بركدب هاتن أو لغا جوغو سدح يتوان سنة للأي هاي أمني كينين كفرت الصومالية لوذا وذاد أياكو صاحبي مركي مقالة مقدشة أي كدلاعين موريان دادك آد وفيقتا أفضو بطا دشاء دعضاء iyadoona la wada og yahay in magaalada muqdisho oo dhan ay hareeyeen mooryaan kala duwan oo aan lahayn jid iyo joo mooryaantaasi oo ka socnaa weliba hogaamiye kooxeedyadii magaalada muqdisho geesaha ka haystay xasan daahir aweys iyo shariif sheekh axmed iyo kooxo ay hogaaminayaan oo loo yaqaanay maxaakiim ayaa magaalada muqdisho gebi ahaanba ka saaray kooxihii mooryaanta ahaa ay ugu horreeyeen hogaamiye kooxeedyada iyadoona dagaalo aad iyo aad u xun ina lagu xasuusto dagaaladii loo yaqaanay ka dhacay galgalato sisi dagaalkii dayniile iyo dagaalkii u dambeeyey magaalada muqdisho looga saaray ninkii la oran jiray cabdi xasan cawaale qaydiid dagaalada kadib ayay u ruqaansadeen magaalooyinka Kismaayo ilaa iyo magaalada Gaalkacyo afaafkeeda hore ee loo yaqaan bandiiradle ayay gacanta ku wada dhigeen labada wadaad oo isla socda iyagoona madax u kala ahaa golihii fulinta maxaakiimta iyo golihii shuurada xasan daahir aweys iyo saaxiibtinimada shariif intaas kuma sii ekaanay waxay isla bilaabeen markii magaalada muqdisho ay soo galeen ciidamadii Itoobiya xisbigii la oran jiray xisbiga dib u xoreynta وحسن ظاهر أويسي شيخ شريف مدح كوضع هايين مقالة سي أسمرة إدالكا سي إريتريا انتا وحي كدب بي مدوغا يوروب مريكانكا يقرب مدوغا وعرب لالادية شريف شيخ أحمد أستقونا الله قريبي كوحدي ولا السعودي وها حزبيقا كوحداسي ومبدأ إيدو وها مقالة ودنكا لغا سارو عيدا ماذا شيشيه شريف شيخ أحمد أيا أسوق قوري مقالة سي جبوتي أستقونا ميشا سي كوكلا إردوين صاحب كيسي قريب كي وضعهايين أما سي صوبوها إنو مدحوين النقضو حسن ظاهر أويس ميشا كما هاريني وحوسي وضي جبهدينتي أساقونا مقالة مقدشة كسو لابطي لغضو كون يوصاقالكي أساقونا كنا واقعي جهاد كدنا دولدي لغوصو لسي جبوتي ومركاسي وقامنا يش شريف شيخ أحمد أسماء ميشا كما يكاني وحو دقال بأن لقلي kooxihii la socdeen xasan daahir aweys oo ay ku jireen xitaa kooxdiisii loo yaqaan xisbul islaam iyo shabaab inta wixii ka dambeeyay shariif ayaa xukunka ka degay oo waxa qabsaday xasan sheekh doorasho si dimuqraadi ah ku dhacday magaalada muqdisho 2012 sanadkii xigay ee 2013 xasan daahir aweys ayaa ka baxsaday kooxda loo yaqaano shabaab asagoo u cararay gobolada ka soo jeeda ee mudug ee qabiilkiisa ay degaan kadibna odayaashii waan socotay saddex bari gacanta loogu soo galiyay shariif xasan daahir aweys dowladii markaas jirtay xasan sheekh ayadoona dowladaasi xabsiga u taxawday ilaa ay haatan uu xabsi ku jiro
sababta ugu weyn xasan daahir aweys ee xabsi ugu jiro ayaa inuusan ka noqon weli fikirkii ka aaminsanaa oo ah in dalkaani lagu xukumo diinta islaamka laakiin taasi aysan ahayn mid qof badan ay Soomaalida ay diidan tahay laakiin daahir aweys weli lagu haysto inuusan ka tanaasulin fikirkii jihaadiga in ciidamada shisheeye ku sugan gaar ahaan amisom jihaad looga saaro dalka Soomaaliya saaxiibtinimada Shariif iyo xasan ayaa isku bedeshay dagaal baan oo xamar ka dhacay 2009 ilaa iyo 2011 markii dambana magaalada looga saaray xasan daahir aweys iyo kooxihii la socday maanta ayuu ka soo jawaabay fariintii uu shalay mariyay baraha bulshada iyo warbaahinta Shariif Sheekh Axmed oo ahaa in magaalada Muqdisho ka saari doono ninka loo yaqaano Farmaajo oo ah madaxweynaha tan ee Soomaaliya xasan daahir aweys ayaa sheegay inuu yahay Shariif nin qayaanoola ah oo diinta islaamkana ku qayaanay eedana lagu xasuusto xilligii maxaakiimta inuu kooxii maxaakiimta uga baxay balantii markii jubbooyinka galeen in la dagaalamo ahayd waa kana xasan daahir aweys oo faahfaahinaya siduu Shariif u qiyaamay iyo mabaadi'da uu aaminsan yahay Shariif Sheekh Axmed فضل كلام شريف أحمد وأنا ما لسه شقيه شريف ولا سيدي محمد سياد بري وحال كنا قد محمد سياد بري مال سهلا وكقعتي مال سهلا وكقعة مال سهلا وكقعة مال باطل وقتي مال سهلا وكقعة وحسابك وقصوا قال سالك وقنا فانا ليه مال سهلا وكقعتي سوح ويان مال باطل وقتي سموجيت waxaa marka adigana waxa la mid ah meel sahlana ka qaadatay meel cidlaan waad uga soo tagtay adoo weliba adigu waxaad uga duuneed magaca ilaahay aad ku qaadatay asagu magac ilaahay waa tuur barquu tuura waa la ogi barquu tuuray wadaadadii bahalkii diintii ku tuntay wadaadadii laayay asnaanu noogu bedelay باكي موسكو اسك حاضريي هل يعني وحا نص ساعه كيريبا لو سعبينايي مال الله uga tageen ayakiina markii uu baahan meel Allah uga tagay walaalow adigana waliba magac ilaahay ku qaaday magac ilaahay marka ku qaatan meel Allah uga tagay meel Allah uga tagay soo mujid meel Allah uga tagay haday tahay abaarti mabdii meel Allah uga tagay رجينا مال الله كحورت معروف وا سوجي إلى هذا وحاليا بارك بدك أو بارك محيه هي بدك أو إلى هذا ما حصل هذا واحد جل عدها يجا عيرك أياه نبضنا أياه قلق بدنا بس واحد يجي ورنيه سو كم بقيس ده اللي يرددكوا إنك تكبرتان كن عان سو كم بقيس بس هو يجي عصب كي وحي عمري جاي عصب كعيرة أقول يعني إذا قتلوا وين ما ركز ولا أنا مركز عادي كبارتي سيدي يوكله ما أنت هذا وحوي ركب أنا بارتي أكو قتلا ولا لو مبدأ واضح مبدأ إلو آمني إلهي درت أكو قاتل واضح رجينا واضح هل عداه من هل لو أو ممكن رجي بارتي ما أنت أكمل جارتي ما أكو بتهم مجرد waxaan tiri maartay bahalkii maxay ahayd waxaan bixinay maartay bahalkii maxay ahayd Mooriana bixinay waa run waa laakiin maada bixin ragi bixiya xageed ku ogi amxaar ragi bixiya xageed ku ogi hal nin maanta oo ka haysa ma jirto hal nin oo ka haysa madana ma haysa ragna ma haysa midkuu ugu dambeeyay waxa weeye xasan kaanoo maartay bahalkii maxay hadii oo bahashu waa qabiila hayde 46 oo ku tirtami karay markii ugu dambeysay oo ku tirtami karay maxaa u siin weysay waa misalada aan kaaga qoostay kamid waxa weeye nin yahu maartay waxa weeye mabda'na waa qumisay ragna waa qumisay ka qatali markaad warramayso waa la isleeyahay maartay bahalkii muxuu ahaa waa la isleeyahay maartay yani warka in wax ka taqaan waa laakiin warkaaga iyo ficilkaaga isma laha
وكنا قانا كما حسدين إلهي بأوجنا نحسدين لكن واكو أقانا dadka waxa weeyaan waa ku meel gaarta ilaahay ka baqwalaalo soo jeedi marka yani umadu yani inay maartay la ilaaliyo waa sax waa waafaqsanahay laakiin yaa see loo ilaalinayo maxaa lagu ilaalinayo see loo ilaalinayo maqabiira lagu ilaalinayo ma balaayo loo maartay bahalkii loogu yeeraa lagu ilaalinayo maxaa lagu ilaalinayo dadka mabda'a lagu ilaaliyo maamula lagu ilaaliyo labadii midna walaalow maartay beeshaan maartay ko ma yaalaan xaggana kama yaalaan marka ma balaayadii waqtiga ahayd ugu yeeray marka وصدق كسر لوجو صوتش بيا أبو ييري مر وحنا صح معاني ويا مارتي على الأقل مارتي يعني على الأقل مارتي بحكي وحكوا سنة بال وحكوا سنة مركا محامك محوية مارتي بحكي محيي وأنا من كان الله الشباب مش كم إحنا وكم رجي أنا حاربك محمد بحية كملها هاي موريان ترجي بحية كملها هاي سمو جد قادر يوم مارتي بحكي محيي قادر أديك السميسية بعد يكون على واحد قادر أديك كات كمية يا هاي مركا ندي كعب بسيبتين وحوية ضدك وحوية واساس وبني آدم واساس صار أديك بمارتي رجع أبو حقود دي أنت حقود دي أنا تلابا دي كوها بون ما قادي حد كشير تجي مارته ما تتكادو شيء حد كشير تجي وما حد ما تتكادو شيء مبدأ من كشير تجي ميس رجل كشير تجي ميس ما مر كشير تجي ميس أنت بقى وصلت تجربي تتكلم مارته ها مارته بالكم حياة هنعمل وكادي واحد ضدك الصوماليات وحويا وضدك الصوماليات والقبيل والوحى ويان وحى تقانين وقبيل ديمقراطية اللي شيءها قال لماذا أو كفر جاء علمانية أو كفر جاء مدنا مرة تقانين مرة كلام تقانين مرة كلام تقانين هذا كور علي إيمان اللي رجل الله الحديث أيا واحد عادي عن مارتي يعني ورد الإسلام كذاتك مارتي هنا يحكم محايدين كديدة مركز يقولي إسلام كذاتك هذا ما يقانينه مركز أنا الديمقراطية الإسلام كي يقاني أسوي الإسلام كي يقاني حدينا دور شيء تبعد كي دور أسوي الإسلام كي دورنا مركز أنا ما مركز أفرتي أنا مارت علمانيين كهذاتك وحي يقاني دورنا يعني لو علني يعني مركز وحاني يعني أفرتاني إنه مارتي قال هذا وحسوا بربرتي أو حان تقانا أيكون كمدك ميقانين فعلا كمدك مخاين تضي كل قانين قابل يقول قانين هو يقان أصلا يقابل يقول لك من بدكوا ودي المهي وروح مركعات كل حل اسمي كرتان وحا كجرة دي انت إسلام كجرته